السلام عليكم ورحمة الله. ومقال كيني سدحات وحنا كبرانينا سيدا ان سيستم كان وغو سميلين configuration انagoo raacayna lab guide keena. lab guide ka waxa ugu horeeyo waa in system keena magaca ka bedelna. maxay tahay magacaan bedeleynana? maxay tahay muhiimadda ku jirta in systemka magaca ka bedesho? Of course, every device aad soo gadato waxaa muhiima inaad magaca ka bedesho u bixiso hawsha uu qabanayo magac u dhigma. haddii systemka magacaad u bixinayso oo noqonin magac meaningful ah hadhow waxa adkaanaysa inaad troubleshooting ku sameeyo. si aad systemka magac kaga bedelno waxaan tageynaa labkeena waxaan ku dhufanayaa routerka ugu horeeyo router 1 waxaan leeyahay enter. now waxaan joogaa routerkeyga qaybtiisa user mode-ka waan ka gudbayaa anigoo isticmaalaya enable. now waxaan joogaa privilege-ka waxaan aadayaa global configuration-ka anigoo qoraayo configure terminal or conft. now waxaan joogaa global configuration-ka si systemka magacaan kaga bedelo just waxaan adeegsanayaa amarka ama command-ka host name space. this is command. command-ku waa kan inoo suuragelinaya in behavior-ka systemka wax ka bedelno. command-ka waxa raaci karo keyword ama argument. keyword waa something ku diyaarsan systemka aad isticmaalayso. argument waa wax adiga aad samaysanayso of course. hadda command-ka waxaan raacsiinaynaa argument. argument aan raacsiinayno waa r1 si systemka aan magac kaga bedelno. now waxaan magac ka bedelnaa ama ajiif gareynay systemkeena. objective labaad waxay tahay in aan enable gareyno routerka iyo switchka portiga iskaga xiran yihiin. okay, router 1 iyo switchka portiga iskaga xiran yihiin waa fa1/0. inta aanan galin portigan waxaan xaqiijinaynaa in portiga uu daaran yahay iyo in uu dansan yahay. si aan u xaqiijino annaga uu joogno global configuration mode-ka waxaan qoraynaa do show ib interface brief. yes waa soo gaagaabiyey waana gaagaaban kartaa waxaan leenahay enter. godka aan rabna inaan programino waa fa1 waa fast ethernet 1/0. wax ib kuma jira waa dansan yahay. si aan u access gareyno interface-kaas waxaan qoraynaa keyword-ka ama command-ka interface oo aan usoo gaabinaynaa int kadib interface name-ka interface number-ka kadib waxaan leenahay enter. right now waxaan ku dhex jirnaa global other which means global waxaan kaga sii jirnaa interface-ka oo ah fa10 waxaana noo cadeynaysa means if. shaqada ugu horeysana laga rabo waxay tahay inaan daarno wadansan yahay sooma. si aan u daarno waxaan leenahay no space shut. okay, no waa command, shut down or shutna waa keyword-ki waxaan leenahay enter. moments kadib systemku wuxuu inoo sheegi doonaa inuu soo daarmay. awaamirtan soo baxeed waxaa loo yaqaanaa system login ama syslog. okay, waxay ii sheegaysaa in systemkeyga marxaladiisa ay noqoto up. before waxa ogeyn inuu ahay down. si aan u xaqiijino waxaan qoraynaa do show ib interface brief. waxaan arkayaa fa inuu hadda noqday up before no ahay down. second option waxaana laga rabaa inaan gelino internet protocol version 4 oo ah 172.16.1.3. si aan u gelino annagoo ku jirno interface-ka dhexdiisa waxaan qoraynaa command-ka ah ib space keyword-ka ah address space then waxaan sheegaynaa argument-ga ama ib-ga arbinaa gelina oo ah 172 of course 172.16.1.3. waxaa raacsanay /24 which means galaxy subnet mask oo ah 255.255.255.0. alright, waxaa kaloo laga rabaa inaan gelino internet protocol version 6 because labka aan sameynayno waa dual stacking. alright, si aan u gelino ib version 6 waxaan qoraynaa ib v6 space address space ib-ga ah 2001 db8 cave 1::3/64. these two ib addresses are same but different in versions, right? this 2001 db8 13 waa ib version 4 kan u dhigmaa 255.255.255 waxay u dhigan tahay /34. sooma
حليناي enter again waxaan xaqiijinaynaa interface kan inuu qaatay ib okay so xaqiijin waxaan qoraynaa do show ib interface brief then enter lena maxaa arkaynaa ib version 4 uu qaatay so xaqiijino internet protocol version 6 inuu qaatay waxaan taabanaynaa flaarta up arrow then meeshaan waxaa imaanayaa ib then waxaan raacsiinaynaa v6 then waxaan leenahay enter right now waxaa arkaynaa fast ethernet 10 inay qaadatay 2001 db8 cafe then 1 then 3 nice so this interface now waa up waa inoo shaqeynaya objective cloud waxay tahay in r1 godkiisa kale oo ah fa 0/0 inaan galno then ip aan kusoo shubno which means interface kaana galena waa daarena then ip ku shubena same process laakiin before waa inaan ka baxnaa fa 10 si aan kaga baxno waxaan adeegsanaynaa exit no matter inaa isticmaasho capital letter iyo small letters CLI-ga Cisco markii la joogo case sensitive maaha yes Juniper markaa joogto it's case sensitive okay laakiin in CLI Cisco no case sensitive right so waxaan galaynaa again interface fa 0/0 si aan u galno processkii aan marayno waxaan leenahay interface fa 0/0 enter right now waxaan ku jirnaa this interface kadib maxaan ku sameynaynaa waa daareynaa see u daareynaa waxaan leenahay no shut down okay tab keyboardkaada haddii aad taawato kuu dhamaystirayo of course okay si aan u xaqiijin waxaan qoraynaa do show ib interface brief see now interfacekeena waa up laakiin no ib assigned si ib uga assign gareyno waxaan qoraynaa ib address then ib version 4 ka u assign gareynayo waa kana waa 192.168.1.1/30 which means point-to-point IP address laba IP unbaa la ogol yahay subnetkeena wuxuu noqonayaa 255.255.255.252 step 1 nicely done yes ma jeegarayn kartaa of course just falaarta kortaawo si aad u hesho commandkii history kugu jiray jeegareen now maxay noo daaran interfacekeeni IP waa gelin waxaan laga rabaa inaan gelin haddana ib version 6 si aan u gelin waxaan qoraynaa ipv6 address then ipv6 address waa 2001 db8 abc 1::1/64 okay ma xaqiiji karnaa yes falaarta kora taabo then ipv6 enter dheh maxaa haysanaa had waxaa haysanaa interfacekii inaan geline ib version 6 nicely done so now waxaa ajiif gareyna marka in systemka magaca u bixino interfaceka galno ibc no daarno waxaan laga rabaa marka inaan imaanay switchka asiga switch waxaan ka sameynaynaa clear maanta inaan magaca ka bedelno then switch wana imaanaya kadib waxaa leeyahay enter switchkii routerka markii la joogo CLI-ga waa isku structure yes different protocols aan isticmaali doonaa laakiin commonly accessing ama navigation waa same si aan u aadna privilege waxaan qoraynaa enable config t then systemka si magaca ugu bedelno waxaan adeegsanaynaa commandka hostname sw1 then waa ka dhamaanay switchka okay waxa uu imaanaya marka bc1 bc1 ka isticmaalayno waa vbc ama virtual computer oo ku dhex dhisan bnet labka wuu ka dugan yahay computerska kala caadiga ah waa shaashad madow waa CLI si ib aan u gelino asaan click siinayna now waxa ii furan vbs si computerkan ib gaan aan u siiyo waxaan qori doonaa ib space 172.16.1.1/24 space computerkan si uu u shaqeeyo lab guide-kan waxaa ku xusnaay inaan siino gateway si gateway aan u siino waxaan adeegsan doonaa fa 10 ib-ga aan gelin oo ah 1.3 just space aan baxaya waxaan qoraya 172.16.1.3 kadibna waxaan leeyahay enter of course wuxuu isoo saarayaa bad subnet maybe in meeshan aan ka dhigno small ib
space enter. Yes, capital kan lagu haysto markii la joogo VPC. Now waxaan arkayaa computer kan IP gan inaan siiyo 1.1.3 na uu yahay gateway-giisa. waxaana laga rabaa IP version 6 inaan siino. See u siinayna just same nidaam aan marayno xalina IP space 2001 colon db8 colon cafa colon 1 colon colon 1/64 enter. Laakiin remember maxaan ka tagay gateway. Say gateway u siina flat kor taawo space u bax then interface kan IP version 6 ka siida geli oo ah 2001 db8 cafe colon 1 colon colon 3 slash maraacsiinaya no gateway-ga you don't need to inaad raacsiiso then enter lena. Okay, ma xaqiijin karnaa IP-yada? Yes, see u xaqiijin waxaa leenahay show IP. Okay, meeshaan maxaa ii soo baxay IP-ga aan geliyey oo ah 1.3 IP version 6 v6 leh. Okay, then IP version 6 kan siiyana xaggaan iyo inoo yaalaa iyo gateway-giisaba. This is how aan u assign garay karno IP address devices keena. Maxay noo dhiman connectivity. Okay, last step of our lab guide waa inaan jeeg gareynaa communication-ka router-ka iyo maxuu ahaa computer-ka. Now waxaan ku jiraa PC1 aan ku jiraa right. PC1 anoo ku jiraa waxaan rabaa inaan ping gareeyo ama aan tijaabiyo router 1 IP address-kiisa. maxaa ogahay router 1 in aan nahay same network. router 1 na uu wato IP version 6 IP version 4. Number 1 waxaan ping gareynaynaa IP version 4 oo wato router waxaan leenahay ping 172.16.1.3 enter markaa iraado hadday markuu soo baxdo this type of time iyo reply which means network-gaada waa saxan. then waxaan ping gareynayaa IP version 6 anigoo qoraayo ping 2001 db8 cafe colon 1 colon colon 3 then waxaa leeyahay enter. Same shit. Now network-gayga waa configured markii la joogo router 1. inta kale isku day adiga inaad samayso processka waa same. router 2 gal magaca ka soo bedel all the way. Good luck.